Maanta waxaan booqan doonaa mid ka mid ah dalalka ugu weyn qaaradda Aasiya, dal dadkiisu ka kooban yihiin kumanaan qowmiyadood, kuna kala duwan yihiin waxyaabo badan sida diimaha, luqadaha, dhaqamada iyo astaamaha ugu weyn ee dal leeyahay. Hindiya waa dal dhaca koonfurta Aasiya, kana kooban 28 gobol ismaamul iyo 8 maamul oo ka hoos shaqeeya dowladda dhexe. Caasimadda dalkan waa New Delhi oo la dhisay qarnigii 20aad, kuna taalla koonfurta xaruntii taariikhiga ahayd ee Old Delhi. Dowladda Hindiya waa dowlad dastuuri ah oo matasha dad wax badan ku kala duwan, sida dhaqamada, luqadaha, diimaha iyo qowmiyadaha ay ka soo jeedaan. Dalkan ayaana noqday sanadkii 2023 dalka ugu dadka badan dunida. Haddaba ku soo dhowaada taariikhda guunka ah ee dalka Hindiya. Hindiya waa dhul ay ka hana qaadeen ilbaxnimooyin qadiimi ah, qaab dhismeed bulsho, mid dhaqaale iyo mid dhaqan. waana natiijada geedi socod dheer oo ballaaran iyo isdhexgal goboleed oo aad ugu weyn. Ilbaxnimada qadiimiga ah ee Hindiya waa mid lala xiriiriyo ilbaxnimadii Indus oo ka talinaysay waqooyi galbeed qaarad hoosaadka Hindiya, meelaha hadda ay dhacaan waqooyiga Hindiya iyo dalka Bakistan. Qiyaastii intii u dhexaysay 2000 ilaa 2600 ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam, Hindiya waxay ahayd ismaamul gooni ah kaasoo ku sifaysnaa dal leh ilbaxnimo iyo horumar qadiimi ah. Waa dal leh xeebo dhaadheer, ganacsi badeed, kalluumaysi iyo dekedo waaweyn. Dalalka ay xuduudda la wadaagto waa ilaa 6 waddan, kuwa oo kala ah dalka ay wadaagaan xiriirka taariikhiga ah iyo khilaafyada siyaasadeed ee Bakistan, dalka Nepal, China, Bhutan, Sri Lanka iyo dalka Myanmar. Sidaas awgeed, Hindiya waa dal juqraafi ahaan dhaca meel muhiim u ah qaaradda Aasiya. Hindiya waxay ku fidsan tahay dhul dhan 3,287,263 kiiloomitir laba jibaaran, halka cabirka dhulka ay biyuhu daboolaan uu yahay 314,070 kiiloomitir laba jibaaran. Cimilo ahaan, dalka Hindiya waa mid kala duwan. Koonfurta Hindiya cimilada waa mid diiran oo qoyan, halka waqooyiga uu qabow yahay xilliga jiilaalka, balse xilliga xagaaga waa mid kulul. Koonfurta Hindiya waa ay ka roob helis badan tahay waqooyiga Hindiya, sababtuna waa in roobabka monsoonka ay saameeyaan koonfurta, kuwa oo ka yimaada badweynta Hindiya. Qarnigii 18aad, quwadihii reer Yurub gaar ahaan Ingiriiska ayaa bilaabay inay daneynayaan Hindiya sababo la xiriira kheyraadkeeda, ganacsigeeda iyo istiraatiijiyadda meesha ay ku taallo. Ugu dambeyn, Ingiriiska ayaa si tartiib tartiib ah ula wareegay gacan ku haynta dalka, waxaana Hindiya si rasmi ah u noqotay gumayste hoostaga boqortooyada Ingiriiska. Intii uu gumaysigu socday, dadka Hindiya waxay la kulmeen cadaadis, canshuur dheeraad ah, faqri iyo takoor, halka kheyraadkii dalka loo dhoofin jiray Ingiriiska. Warshado badan oo maxalli ah waa la gooyey, waxaana hoos u dhacay nolosha shacabka. Gumaysigu ma ahayn keliya xudun ciidan, balse wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha, waxbarashada iyo nolosha bulshada Hindiya. Dhibaatooyinkaas awgood waxaa bilowday halgan xorriyad doon ah, kaasoo ay hogaaminayeen haldoorro badan, waxaana laga xusi karaa Mahatma Gandhi oo noqday astaan qaran iyo mid caalami ah. Gandhi wuxuu dadkiisa ku booriyey in xorriyadda lagu heli karo nabad, samir iyo iska caabin aan rabshado lahayn. Wuxuuna shacabka Hindiya ku bogaadiyey inay iska caabiyaan Ingiriiska iyagoo adeegsanaya mudaharaadyo nabadeed. Diidmada badeecadaha Ingiriiska iyo ku tiirsanaanta wax soo saarka maxalliga ah. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa mudaharaadkii taariikhiga ah ee South March, oo sidoo kale loo yaqaano socdaalkii milixda. Socdaalkii milixda wuxuu dhacay sanadkii 1930. Gandhi iyo taageerayaashiisa ayaa lug ku socday masaafo dheer si ay uga hor yimaadaan sharcigii Ingiriiska ee mamnuucayay in dadka Hindiya ay samaystaan ama iibiyaan cusbada. Ingiriisku wuxuu shacabka ku qasbay inay cusbada ka iibsadaan dowladda gumaysiga, inkastoo ay ahayd wax dabiici ah oo badda laga heli karo. Tani waxay ahayd cadaadis dhaqaale oo culus oo ka dhan ahaa dadka Hindiya. Gandhi iyo taageerayaashiisa ayaana mudaharaad ka bilaabay tuulada Sabarmati Ashram ilaa ay ka soo gaareen tuulada Dandi oo ku taalla xeebaha dalka Hindiya. Socdaal qaatay muddo 24 maalmood, kaasoo lagu soo maray masaafo gaaraysa 390 kiiloomitir. Socdaalkii milixda ee 1930 wuxuu ahaa mudaharaad nabadeed oo uu Gandhi ku muujiyey in shacabka Hindiya ay iska caabin karaan gumaysiga iyagoo aan adeegsan wax rabshad ah. Halgankii Gandhi wuxuu dhiirigeliyey malaayiin qof oo Hindiyaan ah, wuxuuna caalamka tusay in gumaysiga lagu jebin karo xeelad nabadeed. Inkastoo ay jireen dhibaatooyin iyo cabsigelin, Gandhi iyo taageerayaashiisu kama quusan hadafkooda xorriyadda. Ugu dambeyn, sanadkii 1947, Hindiya waxay heshay xorriyaddeeda kadib halgan dheer oo adkaa. Xorriyadda kadib, Hindiya waxay wajahday caqabado waaweyn sida kala qaybsanaan, saboolnimo iyo dib u dhac, balse waxay bilowday dhismaha dowlad madax bannaan.
Maanta India waa dal si xawli ah u horumaraya, gaar ahaan dhinacyada tiknoolajiyadda, cilmiga, waxbarashada, iyo warshadaha. Waxayna ka mid tahay dalalka ugu awoodda badan Aasiya, iyadoo horumarinteedu ay salka ku hayso halgankii iyo samirkii ay shacabka India muujiyeen xilligii gumeysiga. Taas ayaana ka dhigaysa India dal leh saameyn iyo muhiimad caalami ah. Haddaba daawade, maxaad ka taqaanaa dalka India?